Ma jiro dunida shay ugu noolaanaya nafsadiisa, webiguba ma cabo biyihiisa, geeduhuna ma cunaan midhahooda, sida ayna shinnidu u cabbin malabkeeda. Qorraxduna keligeed iskuma iftiimiso iftiinkeeda, ubaxuna iskama abuurmin meesha uu ka soo baxay. Haddaba aynu soo noolaanno inagoo wada jirna, yacni midba midka kale ha caawiyo, ha ku saacido waxa uu dheeryahay, ahaada kuwa iscaawiya, midkiinu midka kale sabab u noqon murugtiisa. Oo haddaanad wax tari karin, waxa dhibaataynin cimrigu wuu soconayaa si degdeg ah. Haddaba ka ilaali cimrigaaga dulinimada iyo hadallada dhacdhaca, ogowna dhammaan way dhashaan, sidoo kalena way u dhimanayaan, balse Allah subxaanahu wa tacaala keligii ayaa baaqi ahaanaya weligiiba. Sidaa awgeed, sabab u noqo farxadda dadka kale si aad wax ugu soo kordhiso noloshooda waxyaabaha qurxinaya. Ogowna deeqsinimadu waa inaad bixisid wax ka badan waxaad awoodid, wanaagga naftuna waa inaad qaadatid wax ka yar intaad u baahan tahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe channelka haddii aad nagu cusub tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.